anigoo aad nabadoon maxamed bin cali unsane dalka markaan ka hadalno garsoorka aad baa looga cabadaa garsoorka ma aha nin hadduu cilmi soo barto isla waqtigii in xafiis u aado waxaa ka horeeya hadduu cilmigu soo barto garsoorkii ka horeeyay oo si xukunku u dhacayo iyo si kale inuu kala fiirsado sidii asalka ahaa jiri horta waa inuu soo maraa maxkamooyinka u dhacayo sidii tafniidka loo sameeyo inuu kala barto hadda waxa loo yiraahdaa waa garsoor maxuu yahay garsoor wala soo wada labada xaruf af soo barti waxba uu xukumi xukunkiisa maxaa ka dawiyo iman karo waxyaalo badan ka dawiyo iman karo waxa jiro shahaad suur nimba marag baalis kaga furaya xukunkii lagu ridaya dhibaato ma aha xibnaha u sareeya garsoorka waa hal qoys weey hal qoys Soomaaliyeed weey marka sidii looga haliilo loo kala soonaado waa adag tahay dadka marka Soomaaliya waxa ku qasbay inay aadaan garsoorka kala aadaan artaasa u sabab ah gudoomiyaha maxkamadda sare ma ahan sharci kuma fadhiyo ma ahan adeeg garsoor ma joogo ma ahan dawladda hadda taagan oo hadda shaqaynaysa iyo dawladdii horeba mid uu mandate ku haystay ma jirto waxaan leenahay anagoo ku hadlaynaa afka odayaasha Soomaaliyeed dawladda federaalka iyo xukuumadda waxaan leenahay waxaa la rabaa shacabku adeeg daacada oo garsoor u baahan yahay ka socda beesh shanaad oo cadaalad darrada ah cadaalad darrada wiligeen waa iska qabnay annaga waxaan u qaadanay dhaqanka inay ka mid tahay cadaalad darrada maanta walaalahay Soomaaliyeed haddii ay soo qeyliyeen waxaan ogaaday cadaalad darrada dadka dhan inay gaartay markii hore waaba iska fiicnayno beelbeelaan isku xukumi jirnay beelbeelaan dhaqanka u fiirin jirnay wixii dhinta wixii naga halaaba wixii la isku qabsadaan xalin jirnay waxaaba timid jeebka lacag ma ku jirtaa mid dhahaysa haddii aad cadaalad rabti jeebkaada lacag ma ku jirtaa marka taas waxay cadeynaysaa inay jirin wax cadaalad ah waxaan codsanaynaa cadaaladii in la helo anaga go'aanaan gaarnay haddii la helay haddii la waayo meelaan u orodnaa helnay oo cadaalad ka raadino laakiin garsoor ahaan iyo ficil ahaan iyo fuli ahaan male marka aysan lahayn inaanay lahayn waxaan rabaa inaan caddeeyo bal idaacadda ciddii maqshahay ogaata taas waxaan rabaa inaan caddeeyo gudoomiyaha maxkamadda sare iyo xeer ilaaliyaha guud wax sharciyada haba yaraatee kuma joogaan waa niman iska yimid meeshoo nin raba keensaday iyana dadka waxay rabaan ku sameeyey cid la xisaabtanta ama ay ka baqdaan midna aysan jirin haddii loo baahdana inta maqasho iyo inta maanta joogtay qaada anaa lay weydiinoo cadeymaheedii keenayo waxaa kaloo intaas dheerno cadeymaheedii keenaa maanta oo ay halkan yaallaan in gudoomiyaha maxkamadda sare xafiiskiisa laga abaabulo dukumiintiyo been abuura oo dadka lagu dhaco anaa lay weydiinaa amaamullaahina anaa lay weydiinaa adduunka inta la weydiiyana inta la joogana aniga maxkamadha lay soo saaro maxkamad transparency leh oo garsoorayaalku fadhiyaan miidiyahana loo fasaxo oo aan ahayn maa uriikum ilaa maa araa hadda waxay nagu haystaan waa intaas maa uriikum ilaa maa araa annaga maaha intiina kale wax ma arki kartaan waxna yeelan kartaan waxna ma ogaa kartaan intaasay nagu haystaan labadani